kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilkiin baa meel walba oo aad joogtaan kusoo dhawaada warka saacadda ee Jubaland TV oo idinkaga imanaya xarunta dhexe ee telefishinku ku leeyahay magaalada Kismaayo. Qodobada warkeena saacadda aynu idinkagu haynana waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa booqday deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose. aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu dhaliilay sida dowladda federaalka ah ay uga jawaabtay dhacdooyinka ka dhashay fatahaadda ku dhufatay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka ee aan duuliyaha lahaynna waxa ay duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Bari kuwaas oo la sheegay in lagu beegsaday fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh. qodobada kaleeto ee aad ku maqli doontaan inta warkeena saacadda aynu ku guda jirro waxaa ka mid noqon doonaa howlgalka Africom ee Mareykanka ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kooxda Al-Shabaab awood ahaan ay aad u wiiqmeen xilliyadii ugu dambeeyay. qodobada dibaddana waxaa ka mid ah waddanka Iraq oo ay ka socdaan dibadbaxyo ayaa booliska dalkaasi lagu eedeeyay in awood xad dhaaf ah ay u adeegsadeen dadka dibadbaxaya. xubnihii ciyaaraha iyo ganacsiga ayaa ka mid ah sidoo kaleeto warkeena saacadda u diyaar garooba goordhow isagoo dhan. mar kaleeto wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkeena saacadda oo faahfaahsan. wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo ay wehelinayaan saraakiil ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa booqday deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose. wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa halkaasi kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool deegaanka Cabdalla Biroole iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka oo haweenka iyo dhalinyaraduba ay qayb ka ahaayeen kulankaasi. waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray sidii bulshada deegaankaasi ay uga qayb qaadan lahayd dadaalada xasiloonida iyo dowladnimada loogu soo dabaalayo deegaanada Jubaland iyadoo odayaasha dhaqankii kulankaasi ka qayb galayna ay ballan qaadeen in ay garab taagan yihiin dowlad goboleedka Jubaland. sidoo kaleeto saraakiisha ciidamada ee aagaasi ka howlgala ayuu la kulmay madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisu iyagoo ku dhiirigeliyey shaqada adag ee ay dalka u hayaan isla markaana ay ku soo xaqiijinayaan nabadgelyada deegaanadaasi. waxaana kulamo bulshada kala duwan ee deegaanka ku nool wafdigu uu la yeeshay ay ku soo dhammaadeen is-afgarad buuxa. aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhaliilay sida dowladdu ayna weli jawaab rasmi ah uga bixinin fatahaadda ku dhufatay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Abshir Bukhari ayaa sheegay in uu aad uga walwalsan yahay xaaladda murugada leh ee bini'aadanimo ee ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle kaas oo fatahaad ku sameeyay qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne. qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay ayuu gudoomiye Abshir ku sheegay in xukuumaddu ay mudnaan gaar ah siiso arrimaha siyaasadda iyo dowlad goboleedyada oo kaliya halkii laga rabay in ay fiiro gaar ah siiso ka hortagidda iyo ka jawaabid la'aanta ilaa hadda ka jirta musiibooyinka dabiiciga ah qaybo ka mid ah gobollada dalka. waxaan aad uga walwalsanahay xaaladda murugada leh ee bini'aadanimo ee fatahaadda webiga Shabeelle uu gaarsiiyey dadka iyo deegaanka Beledweyne. waxaan ugu baaqayaa mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay'adaha ku shaqada leh ee dowladda federaalka ay gargaar la gaaraan buu yiri dadkaasi musiibadu ay ku habsatay. qiyaastii 70% qoysaskii deegaanada waa qoysaskii deganaa magaaladaasi ayaa u kala qaxay deegaano hoostaga magaalada Beledweyne si ay uga gaashaantaan dhibaatada ka dhalatay fatahaadda uu sameeyey webiga Shabeelle ee markaasi ku fatahay qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne. diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka ee aan duuliyaha lahayn ayaa duqeymo ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka Bari. waxaa la sheegay in ay la eegteen fariisimo ay halkaasi ku leeyihiin kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh.
saraakiil ka tirsan ciidanka dowlad goboleedka Puntland ayaa xaqiijiyay in duqeyn lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan Daesh. wararku waxay sheegayaan in duqeymahan ay ka dhaceen nawaaxiga tuulada Cambayra oo ay ku sugan yihiin kooxda Daesh iyo sidoo kale deegaano halkaas ka dhow oo lagu tuhmayo inay joogaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. qaar ka mid ah dadka ku nool deegaankan ayaa weeraradan waxa ay ku sheegeen inay geysteen diyaarado kuwaas oo gantaalo ku dhuftay goobo ka mid ah deegaanka. hase yeeshee ma jiro war ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. ciidamada Mareykanka ayaa kordhiyay bilowgii sanadkan duqeymaha ay ka geysanayaan goobo ka mid ah Soomaaliya. howlgalka Africom ayaa sheegay in awoodda kooxda Al-Shabaab ay aad u wiiqantay sanadihii la soo dhaafay iyadoo ay ugu wacan tahay baa la yidhi sida kooxdu ay ugu fashilantay haysashada deegaano fara badan oo kal hore ay ka talin jireen. agaasimaha xiriirka dadweynaha taliska Mareykanka ee Africom Charles Karen oo wareysi siiyay idaacadda codka Mareykanka ee VOA ayaa sheegay in Al-Shabaab ay hoos u dhigeen weerarada ay ka geystaan gudaha Soomaaliya. waxa uu sheegay in Al-Shabaab sanado ka hor ay maamuli jireen 95% ilaa 85% balse haatan ay maamulaan oo kaliya 20% deegaanadii ay kal hor haysteen. taasina ay sabab u tahay weerarada ciidamada dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ay ku qaadaan fariisimaha kooxdani ay kal hore ka talinayeen. dhanka kale waxa uu sheegay in Mareykanku uu xoogga saarayo tababarka ciidamada Soomaaliya gaar ahaan kumaandooska kuwaas oo awood la doonayo inay u yeeshaan sidii kaligood Al-Shabaab ay ula dagaalami lahaayeen. ciidamada danab ee Soomaaliya oo Mareykanku uu tababaro ayaa qayb ka qaatay howlgallada kooxda Al-Shabaab lagaga saaray deegaano fara badan kuwaas oo lagu curyaamiyay dhaqdhaqaaqa kooxda. daawadayaal goordhow waxay noo soo socdaa xubnihii ciyaaraha iyo ganacsiga ayaad goordhow maqli doontaan balse imikana wararka ka imanaya qaybo ka mid ah dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in booliska Talyaanigu ay badbaadiyeen dad markaasi saaraa dooni tahriibayaashu ay rabeen inay ku gaaraan dalka Talyaaniga balse ku qalibantay xeebaha wadanka Liibiya. waxaa booliska Talyaanigu ay sheegeen in dadkaasi qaybo ka mid ah oo la soo badbaadiyay la geeyay qaar ka mid ah magaalooyinka ku dhow xeebaha dalkaasi si loo badbaadiyo isla markaana xaaladooda loola socdo. imikana daawadayaal ku soo dhawaada xubinta ganacsiga oo inoo hayo wariyaheena Sabriye Xuseen Barre. tahay maxamed xasan xiis haddii aan guda galo xubinta ganacsiga ee warka waxaan ku eegi doonaa dabcan qaaradda Afrika dhammaan madaxdii ka socotay ama hogaamiyaasha Afrika ayaa maalmahan waxay ku sugnaayeen dalka Ruushka iyagoo markaas kulamo gaargaara iyo shir loo maalin socday oo looga hadlayay sidii Ruushka u maalgashan lahaa qaaradda madow ee Afrika halkaas ay markaas u wada qaateen. haddaba faa'iido intee leeg ayaa ugu jirta Afrika iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxweynaha dalka Ruushka ninka lagu magacaabo Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in lacag dhan 20 bilyan oo doolarka Mareykanka u cafiyay qaaradda Afrika taas oo ay deen lagu lahaa wadamo badan oo Afrikaanka ayaa hadda waxaa bilowday olole ka dhan ah sidii markaasi wadamada reer galbeedka iyo kuwa dunida ugu quwadda weyn sidii ay markaasi uga shaqeyn lahaayeen qaabkay u soo jiidan lahaayeen qaaradda Afrika isla markaana loo horumarin lahaa wadamada kala duwan ee Afrika ku yaal. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka lagu tiriyay dunida kuwooda ugu hodansan balse waxay u baahan tahay maalgashi xooggan. madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qayb ka ahaa madaxdii dhawaan ka qayb gashay shirkii ka dhacay dalka Ruushka isagoo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha dalka Ruushka. waxaa isla soo hadal qaaday qaabkii markaasi dawladda Ruushka ay la bilaabi lahayd wada hadal iyo xiriir ganacsi oo dhow iyo waliba mid qoto dheer iyadoo sanadkan bartamihiisii ay safiir u soo magacooday dalkana Soomaaliya. taasi waxay qayb ka tahay wadamada la doonayay in kobac dhaqaale iyo sidoo kale maalgashi lagu sameeyo.
soomaaliyana sida aan la soconno dunidu waxay sheegtaa in ay ka mid tahay wadamada ugu qanisan dunida isla markaana gobol ka mid a gobollada dalka soomaaliya ay ku noolaan karaan dalal badan dadka ku nool taasoo eebbo ku manaystay dalkeena khayraad kala duwan haddii aan le dhanka badda beriga xoolaha iyo sidoo kale wax soo saarkaba waxaana markaasi la rajeynayaa in sanadaha soo socdo la bilaabi doono olole markaasi guud ahaanba qaaradda africa lagu maalgelin doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti ee aynu dariska nahay isla markaana walaalaha dhowaan ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan waddo tareen oo mari doonto guud ahaan wadamada africa si markaasi looga kaaftoomo safarada dhaadheer ee markaasi in ka badan 19 saacadood qaata ee wadamada qaarkood isaga kala gooshaan waxaana markaasi uu sheegay in wadadaasi tareenka ah ay dhisi doonto dowladda ruushka oo hadda shirkaasi markaasi kusoo gabagabaysay dalkaasi Russia waana markaasi fursad muhiim ah oo dowladaha afrikaanka ay heleen si markaasi u helaan maalgashi xoogan iyo taageero ka dhan ah dowladda ruushka oo inta badan la sheego in ay loolan adag kala dhaxayso xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo iyagu aan isku fiicnayn inkastoo lagu eedeeyay in soo bixitaankiisii iyo ku guuleysigii xilkaas dalkaas Mareykanka ay qayb ka ahayd in ay garab siiyaan siyaasiyiin dalka Russia ka soo jeeda aad baa umahadsantahay haatan waxaan dibida kugu celinaya maxamed xasan xiis iyo qeybaha kale warka aad buu u mahadsan yahay sabriye xuseen barre iminkana xubinta ciyaaraha waxaa inoo hayaa aadan yare sanad daawadayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee warka waxaan idin aqrinaya anigoo aadan maxamed cumar aan ku bilaabay kooxda Leicester City ayaa gaartay guushii ugu weyneyd ee abid ee kooxaha Premier League Leicester City ayaa barbaraysay ama gaadhay rikoorkii guushii ugu weyneyd ee taariikhda Premier League iyadoo 10 xidig oo Southampton ah ku xasuuqday 9 ciyaar ka dhacday garoonka Tottenham Southampton Leicester City ayaa guushan taariikhda ah ku gashay kaalinta labaad ee horyaalka kala sareynta Premier League Jane Wood ayaa goolasha u furay Leicester City laakiin xaaladda Southampton ayaa waxay xumaatay markii casaan uu ka qaatay daafacooda daqiiqadii 12aad ee ciyaarta wixii markaas ka dambeeyay Leicester ayaa waxay geysatay xasuuq aan loo meelaysan karin waryaanada Vardy iyo Perez ayaa ka mid ahaa kuwii dhaliyay 3 halkii Yormis iyo James Henderson ayagana shabaq soo taabteen Leicester ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay horyaalka Ingiriiska ee gaartay guushii ugu weyneyd ee garoomada aweega ah ay ku ciyaaraan maadaama ay 9 kaga badiyeen kooxda Southampton ee ku ciyaarta garoonka Marlow Stadium dhanka kale tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa shaaca ka qaaday in Antonio Conte uu ciyaari doono kulanka caawa macalinka kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa shaaca ka qaaday in Antonio Conte uu seegi doono kulanka caawa ee kooxda Burnley ku martiqaadi doonaan horyaalka Premier League Conte ayaa dhibaatoonaya dhaawacyo oo kala duwan muruqa boodada taasoo keentay inuu seegi doono kulamada ugu dambeeya ama seegi kulamada xulkiisa ay wada ciyaarayeen isla reebka Euro 2020 sababta la xiriirina inuu wili ka kasbanin dhaawacii uu qabay Frank Lampard ayaa shir jiraad ka soo muuqday ka hor kulanka caawa ee kooxda Burnley ayaana wuxuu yiri Antonio Conte ma ciyaari doono kulanka caawa ee Burnley sida ugu soo kabto dhaawiciisa waxaan u baahanahay adeegiisa waxaana sugaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo laabto intaas waxaa si dheer tiro ciyaartoy oo kooxda muhiim ah ayaa caawa kulankaas ka sii maqan ee kooxda Chelsea waxaana ka mid ah Antonio Rudiger iyo Andreas Christensen iyo sidoo kale Ross Barkley daawadayaal wanaga inta xubintii ciyaaraha ee warka haatan dib ku wacnaya qaybaha dhiman ee warka aad buu mahadsan yahay aadan yare waxaynu soo gaarnay qaybihii u dambeeyay ee warkeena saacadda iminkana qodobada dibadda waxaa ka mid ah booliska dalka Iraaq ayaa awood xad dhaaf ah waxay u adeegsadeen dad dibadbaxyaal ah booliska Iraaq ayaa lagu eedeeyay in ay awood xad dhaaf u isticmaalayaan dibadbaxyaasha reer Iraaq ayaa dalbanaya isbeddello dalkaasi laga hirgeliyo gobolada lagu soo rogay bandowga ayaa kala ah Basra iyo sidoo kale gobolka Diqar si looga hortago
rabshado markaasi laga cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan nolosha iyo qaar ka mid ah howlaha magaalooyinkaasi ka socda. boolisku waxay sheegeen in 12 ka mid ah dibadbaxayaasha lagu dilay magaalada Diiwaaniya xilli ay isku dayeen in ay dab qabadsiiyaan xarun ay leeyihiin ciidamada militariga ee dalkaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku eedeeyay ciidamada ammaanka Ciraaq inay sameeyeen gaboodfallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha tan iyo intii ay socdeen dibadbaxyada labadii toddobaad ee ugu dambeeyay. ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhimatay mawjado rabshado ah oo ka dhashay dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda Ciraaq. wararka qaar ayaa sheegaya in kala bar dadka dhintay la dilay xilli ay ku soo xoomeen xafiisyada dowladda. dad gaaraya 2,000 oo qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay dibadbaxyadan sida wakaaladda wararka ee AFP ay ka soo xigatay saraakiisha ammaanka. cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa BBC u sheegtay in dadka reer Ciraaq ay ka daaleen ballanqaadyo aan la fulin oo ay sameynayaan dowladihii isku xigxigay. warkii saacadda oo daawadayaal aad kala socoteen Jubaland TV maanta intaas ayuu ku dhan yahay. tan iyo inta aynu warkankiisa xiga dib ugu kulmi doono waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.